iyadoo aynu ku guda jirno maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaa haatanna ganacsatada magaalada Mandheera waxay ku baaqayaan in la helo xaalad lagu furi karo xadka Kenya iyo Soomaaliya si loo fududeeyo ganacsiga loona horumariyo nolosha dadka deegaanka. Waxa microphone kala dhaxmarnay ganacsatada magaalada Mandheera iyagoo noo faahfaahin dheeraadna naga siiyay sida iskugu tirsanaayeen labada degmo ee hadda soo dhaxmartay xaalad amni darro. Warbixintooda waxa kamid ahayd sida tan in xuduudka xiran yahay Mandheera iyo Bulaxaawo halkaas anaga reer Mandheera hadana waxa nooga imaaday caqabad ganacsatadii oo maaragtay iska walbahaarsan oo hantidii la soo adeegay ninka sar lacagtii uu ku soo adeegtay iyo hantidii uu soo galay dukaanka oo waxba aan fiican ka kala soconin inigu waa u jeedaan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka William Ruto inuu xuduudka noo furo oo ganacsano maxay yeelay dadku way isku dhaxnool yihiin anaga bulshooyinka markaas dhax galaan ayaan waxeelaynay hadda wixii way istaageen ganacsigii waa istaagay wax gadanaya fiican ma jiraan tan kale ayadana waxa weeyo dhanka korontada ayadana caqabad baa naga haysata suuqu uu dadan yahay kor u ka dadan yahay lama helayo iftiin fiican waxaan ka codsanaynaa qoliyaha korontada inay maartay intay ciida laga gaaray ciida ka dhamaanayso inay korontadan sida noogu daayaan. Anigu waa Cabdullaahi Xasan Dhaqane shaqadeyda ay tahay harqaan waxaan joogaa meesha baclaha gaar ahaan Gambaloolka run ahaantii ciida aad bay u kala socotaa shaqada xamaasadeedana aad ay u kacsan tahay dhibaatada ugu weyn oo laakiin anaga hadana saameysay waxa waayo koronto la'aan dadkii customerka anaga noo imaanayay xataa waa ku kala dhimanay korontada darteedii maxaa yeelay qofka horaan waa u shaqeyn jirnay habeen iyo maalinba hadda koronto ma jirto maalin ma jirto habeen ma jirto labadiiba waxay noqotay bandow dad badan oo customer marka dhibaatada ugu weyn oo naga qabsataa waxay tahay dadkii dharka noo keensan jiray xataa wayna aamini waayeen waxay noo qaateen ayagoo arkayaan wixii jiro iyo magaalada xaaladeeda ayagoo arkayaan annagana aan ku xirannahay korontadii waa isku dhacnay meesha ayada waxaa ka imaaday dhibaato aad u weyn oo dadkii annaga aan u shaqaynaynay micnaha na kala qabsaday taasna waxaan ku eedaynaynaa Kenya Power waxay nagu samaysay koronto waqtiba nama siisaba habeen ma jirto maalin ma jirto annagana waxaan wax ku tolno waa korontadii mashiimii waxay ku shaqaynayaan waa koronto goloobka caadiga xataa dharka lagu jartaa jarmadii malaha wax lagu jaranayo harqaanka daasoo fadhiisa wax ku tolnay malaha marka hadda dhibaatada ugu weyn waa taas gaar ahaan dhanka ciida way fiican tahay dadka dhar way la imaanayaan way isku diyaarinayaan inay macnaha ciidaan oo maxay ahaydeen dad ilmahooda ay ciidsiyaan laakiin dhibaatada ugu weyn oo haystaa waxay tahay on ka shaqeysan laanahay korontada ciidan iyo iidii hore wax badan baa noo dhaxeeya ciidan aad bay xoogaa xaladda inooga qasan tahay laba dhinacba aad baan maartay aan ugu sheeganaynaa xoogaa culays lamba 1 dhinaca korontada Kenya Power Mandheera culays badan naga haysta alxamdulillah maanta horta way noo joogtaa alxamdulillah hadda suuqu maanta way noo joogtaa kulay magaalada inteeda kala badi way ka maqan tahay xilligii Ramadaanka aan filayno insha Allah in wax badan aan ka faa'iideyno Ramadaanka ganacsiga iyo dadkii Mandheera maadaama aad ku ay tahay qabow iyo barafkii iyo wax badan aan ka faa'iido lahaynay waxa weeyaan culays aan qabtay koronto waa waynay wax badan waa ka qaylinay Kenya Power waa u tagnay madaxdu way hadashay ilaa Nairobi baarlamaanka la isla gaaray ilaa haddana wali waxba kama hayno caqabada meel nagala haysta ilaa hadda waan garan laanahay culayskii wali waan haystaa ilaa hadda wali xal ma hayno oo korontada xageed ah galabtii markii la gaara 10 saac waxa faylo gala Balaxaawo dadkii reer Mandheera shacabka reer Mandheera waxa fayl ugu jira Balaxaawo taasna waxa way caqabad kale ka imaaday Balaxaawo iyo Mandheera laba magaalo diris ah walaalaha isku fiican wax badan ay dhaxyeelaan ay hayeen ganacsiga iyo waxbarashada iyo wax wadan ba dhaxyeelay iyo maartay caafimaadka wax badan ba maartay isku lahayn labada magaalo maadaama xoogo shaqaaqa soonkii bilowgiisa xoogo shaqaaqa ay ka dhacday xuduudka waxa weeyaan aad bay noo saameysay naftirkeeda dadku isku socdeen wax baa la wada gadanay reer Mandheera xagga ay aadayeen wax bay soo adeeganayeen reer Balaxaawo inta ay imaadayeen way adeeganayeen wax badan ba dadka dhaxyeelay
badeecada naftirkeeda oo xagga nooga imaadaysay ama garanaysaa ee soo adeeganaynay oo xagga nooga imaadaysay caqabad badan baan qabsatay culaysan caadi ahaan qabsaday waxa way xaduudku waa xiran yahay awal waa xirnay laakiin xogaa maslaxa oo dadweynaha oo dawladda ay fiirinaysaa xogaa lagu socday ma xirnaadkiisa ma xilli dheeraas ahay laakiin inta yareedo maslaxadeedna hadda waa la istaajay maadaama xogaa xaduudka caqabad ay ka dhacday marka labadaas culays ay sakan saameysay culayskii xaduudka iyo culayskii korontada isla keen saameey saa darteed Mandheera marka waxa weeyaan safartaan aad bay ugu leedataa xagga soo dhaweynta ciidii iyo dhaqaaqii soonka Ramadaanka sidii la arki jiray waxa weeyaan dhibac hatta waxa weey ma dhama inta ma garanaysaa aan arkayna hadda insha Allah laakiin waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay noogu soo celiyo korontadana sideeda hore isii ka fiican dawladana waxaan leenahay arintaas dadka ku shaqada leh ha iska xil saareena waliba Kenya Power dhaliilay leeyihiin ilaa hadda ilaa weegan hata waxaan arkaynay wax hor loo keenan arkaynay ilaa hadda wax ma hayno koronto ma hayno marka alxamdulillah ilaahay ma had iska leh shaqada way socotaa si laga rabay maana ahan suuqu iska maaragtay yara jiifa ciid hore ciidan waxa u maleynaysaa inuu farqiga u yahay waa Mandheera County ganacsi la'aan ka jirto marka ilaahay baana keenay waa san hadda sabayna waa xagga abaaraha insha Allah wana ilaahayna abaartana uu naga qaadi marka suuqa aad iyo aad u hooseeya marka isu socodka waxa way uu yar yahay dadka ma adeeganayaan sidii iid hore jaam ayay ahayd jaam fara badan ayaa jiray marka iidan waxa u malaysaa iid hore kala ma ahan marka waa xagga haday tahay bagaashka alaabaha la isku carfiyaan ganna anaga iyo maacunta markii hore soonku maacunta ay bilaabaneysay soonku uu hooseeyay oo dadka adeega maacunta uu yaraa haddana waxaad u malaynaysaa alaabaha waxaan ganaa sida cilaamada iyo bagaashka barfuunada catarada waxaad malaynaysaa xoogahoo dadkii aan sugaynay oo ganacsato dadku wax naga gadanaya ma joogaan bariyahan ma imaadaan suuqa way ku yar yihiin marka waxa waaye waa insha Allah waxaan rajaynaynaa in suuqu uu isbedelo haddii iida horena farq weyn u dhaxeeyo marka ganacsiga Mandheera ilaahay baan u baryaynaa kulli wax kaloon sameynayna ma lahan iida bisha Ramadaan ma sha Allah waa shaqada aad u wanaagsan tahay balse xoogo caqabado yar yar iska yar jira sida koronto la'aanta iyo wixii la mid ah ganacsiga xoogo hoos u dhacay ganacsiga hadda isbedel weyn ayaa jira sanadahan dambe marka hadda horaan bishii Ramadaanka oo kale bilowga ilaa iyo 30 shaqada aad u wanaagsaneed laakiin hadda waxay ku soo gabaabsatay maalmaha ugu dambeeyo 5 maalmood mise 10 maalmood ugu dambeysay shaqadii wanaagsan tahay lakini xogo hoos u dhacay ayaa iska yar jira kwa kweli kazi inabadilika sijui kama ni economy ndo mbaya lakini mambo yanaenda kubadilika na ile nyingine I think tulipata kitu lakini kwa sasa mambo ni kama imebadilika kabisa ukiona hii gari yangu inaitanga V816 inakanga hapo lakini sasa inaona mambo ni vile vile haijapungua sijui mambo yakoje lakini nategemea hiyo mwaka mwingine mambo huenda yakabadilika kwa njia nyingine waxa way caqabadaha waxay ka imaadeen xagga oo xuduudaha oo xiran xuduudaha xiritaankooda dib weyn ka jira markaan isu socodku aad u liitaa markaan ciidan aad bay u liidataa oo waxyaalaha la keeno oo ciid loogu tarkala dadka inay gataan caqabado weyn ka jira taas daraadeedna waxay ku xiran tahay in la furo oo dawladda xaggeed waxaan ka codsanaynaa in la furo dadka oo dhanka xuduudaha la furo dadka ay wax kala gataan ilaa ciid laga gaara wax waa la iska dili jiray waxna waa la xalin jiray waxaan ka codsanaynaa xagga dawladda xaggeeda inay noo furto xuduudaha xaggooda ay noo furaan aan ka codsan lahaynay ayron ahaanti maanta baan ka hadla farqiga u dhaxeeya iidaan iyo ciid hore horta alxamdulillah ilaahay baa mahadlay ciid walba ilaahay baa iska leh marka qaasatan iidana baan ka hadla ganacsigu uu socdaa maadaama labada xuduudna ay kala xirmeen oo Balaxa iyo Soomaaliya dad isku nool ay ahaayeen Balaxa iyo Mandheera dad isku nool ay ahaayeen marka insha Allah waa rajaynaa iidan in la furo maaragtay ganacsiga uu furmo run ahaantii wallahi ciidaanaytu waa ciid fiican ciid walban ilaahay baa iska leh muhiimadda waxay tahay nabadgelyada haddii nabadgelyo ilaahay uu ku siiyo si fiican aad u iidaysaa nabadgelyo naas lagu le marka maadaama aan arkay bulshada maanta ay gadanayaan waxyaalaha ay ku ciidaan iyo si farxad leh ay u iidahayaan ilaahay mahadiisu intaas ma aragtay meel loo dhaaf karaan lahayn oo ma aragtay mahad ilaahay loogu mahad celinayo
waxaan rajaynaynaa inta boodhan noo furo tafadhali sana boodhankan naga xiri shaqa la'aanta shaqada zamaani waa zaid ahayd waa naga gaabatay qamiisaha zaid u gadi jirnay meeshan jaam ahaan jirtay hadda dadka waa kala jaraadeen ciid ma jirta saasaan rajaynaynaa inta xuduudna noo soo furo saasaan tugayna si reer Mandheera u nahay haddana dadku waxa ka soo jirnay maxaa dadkan reer Balxa oo soo gudbi jiray waxa uu tolo jirnay meel kasta xuduudaha kala xiran yihiin والله هذا وعدك تاي سنة كان شلون كان